kulan wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan mar kale barnaamijkii kacaanka naafada kaas oo aanu ku eegno ololaha iyo sidoo kale fikradaha muddooyinkii u dambeeyay ee ku dhaqaaqay dadka naafada. Dowlad goboleedka Jubaland kulan ay ku yeesheen magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kaga hadleen baahiyaha gaarka ah oo qabaan sharciga naafada qaranka ee uu dhawaan ansixiyay madaxweynaha dalka waxaana ugu horeen goobta ka hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka ururka naafada Jubaland Xuseen Faarax Dariir. waxaan ugu taakuleeyo dawladda ma hayno ama dawlad federaal ha noqoto ama dawlad goboleed ha noqoto ama dad kale oo ganacsato ha noqoto marka naafada waxay ku jirtaa Gumeysi nafsiyana oo ay dadkooda ugu jirto oo dadkooda ay arki laayihiin oo daryeeli laayihiin madaxweynahaas federaalka oo barnaamijkii naafada ay soo heshay adduunyada ogolaaday 180 dawlad ay saxeen gabadha loo soo dhiibay gabadha xamar ay keentay gabadha xaququlsaanka laga soo bilaabay aqalka hoose iyo aqalka sare ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha afartaba ay saxeen ilaa hadda meel ay waraqaas gashay lama hayo lagama daba tagin gabadhiina way qaaday wax rabtay ku xoogsataa naafada lama soo wadaagto cid kale lama wadaagto yaa marka xuquuqdii naafada oo halka ku jirta oo la rabay in hay'adii naafada la dhiso cid marka soo saari karta waayo waa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo baarlamaanka qof ka daba tagay iyo qof xagay martay yiri male taasa waxaan rabnaa hadaan Gumeysiga sheegayna oo san jirin madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaaraha xasan cali khayre labada aqal ee baarlamaanka oo labada gudoomiye ay madax ka yihiin inay isweydiiyaan waraaqda saxiixan iyo u saxiixan maxay ku saxiixan xagay soo direen haddii u saxiixan naafada qaranka u saxiixan waa inay weydiiyaan qofka u dhiibeen waraaqdii iyo barnaamijkii iyo hay'adii naafada aaway waxaan suugaynaa in naafadii la wala sharciyay in guddiga la dhiso guddiga ay soo gudbaan xubintanada in laga siiyo Jubaland la keeno markii Jubaland la keeno madaxweynahana uu gacanta ku dhigo madaxweynahana marka anaga la xisaabtamay magaciisa Xuseen Abdiraxmaan Ali ali yiraahdaa naafada Jubaland aan kamid ahay tabarhum baan hayso naafada Soomaaliya markaan ka soo qabtay khaas ahaan madan Jubaland anaga aad ayaan dhaliil weyn u qabnaa aad ayaan noqolo jiifa meel ay ka socotun waa garan weyne annaga dad Soomaali ah oo alxamdulillah waxaan nahay Soomaalina ku naafoobi baan nahay ciidii calankan wax ku leenahay laakiin inaan ciidii calankan wax ku lahayn ayaan u qaadanay hadda kulu wadaagi lahaa in hoos nolo eego oo nala aqoonsado oo xaquuqdayga aan helno xaquuqdaydan la nahay xaquuqdayna waa waynay xaquuqdayn inaan helnaan rabnaa أنا اللي هذا عبد الوهاب معلم بشير وعن كهذا يا ururka naafada Jubaland hadaan nahay Soomaaliya oo dhan naafada way ku liidataa Soomaaliya oo dhan ahdigii la galay wax loogu qabtay malaha dadka